qabanqaabada aaska injineer Yariso oo lagu guda jiray maalinta Sabtida amniga Muqdisho oo la adkeeyay. Wasaare Khayre oo shir gudoomiye shirka amniga ee magaalada Dhuusamareeb. Sheekh Shaakir amniga Dhuusamareeb waxaa la wareegay ciidamo gaar ah dowladda federaalka diyaarisay. Madaxweynaha Jabuuti oo ka tacsiyay Allah u naxariistay geeridii ku timid gudoomiyaha gobolka Banaadir. Wasaaraha oo daawo gaarsiiyay isbitaalka guud ee magaalada Dhuusamareeb maalinta Sabtida ahayd. Wasaare Khayre oo dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho. Meydka Allah u naxariistay injineer Yariso oo laga soo dejiyay magaalada Muqdisho. Gudoomiyihii hore gobolka Banaadir oo asqar lagu sameeyay gobolka Banaadir. Wasaare Khayre oo la kulmay hooyadii dhashay gudoomiyihii hore injineer Yariso. Gaari uu watay wasiirkii hore ee qorsheynta Puntland oo qorax lagula eegtay Boosaaso. Wasaare Khayre oo booqday ciidamo loo diyaariyay inay ka howlgalaan la dagaalamka argagixisada. Taliyaha guud ee ciidanka AMISOM oo gaaray magaalada Kismaayo. Maxkamadda ciidanka oo dil ku fulisay rag Al-shabaab ah. Wafdi ka socday gobolka Igad oo gaaray magaalada Kismaayo. Sarkaal ka tirsan waaxda canshuurta oo lagu dilay suuqa Siinaa ee magaalada Muqdisho. Wasaare Khayre iyo ergeyga Mareykanka David Hale oo kulan ku wada yeeshay magaalada Muqdisho. Shirkii gudoomiyaasha baarlamaanada Afrika oo ka furmay dalka Koonfur Afrika maalinta Talaadada ahayd. wakiilka Igad ee Soomaaliya iyo xildhibaanada Jubbaland oo kulan yeeshay maalinta Talaadada ahayd. Maxkamadda gobolka Banaadir oo xukun ku riday nin u dhashay dalka Ingiriiska oo loo haystay qalqalgelinta amniga. Saldhig xuraynta Jubbada Dhexe oo laga furay degmo ka tirsan gobolka Gedo. musharaxiinta Jubbaland oo shuruudo ku xiray ka qaybgalka doorashada Jubbaland. Taliska ciidanka xoogga dalka oo war ka soo saaray howlgal lagu qabtay Awdheegle. Gudoomiyaha baarlamaanka oo shaaciyay inuu xirmay shirkii kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka. Ciidanka Jubbada oo howlgal ka wada degmada Afmadow maalinta Arbacada ahayd. wasiirka hore wasaaradda waxbarashada Cabdi Daahir oo maqaal ka qoray tacliinta Soomaaliya. Madaxweyne Dani oo sheegay in dadka ka shaqeeya hay'adaha samafalka ku soo badanayaan maamul goboleedyada. Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay cabashada laga soo gudbiyay Ethiopian Airlines. shaqaalaha dowladda Soomaaliya oo galeen fasaxii maalmaha Ciidul Carafa. Gudoomiyaha golaha shacabka oo weli kulamo ka wada dalka Koonfur Afrika. Taliyaha cusub ee howlgalka Afrika oo booqasho ku yimid Soomaaliya kana hadlay la dagaalanka argagixisada.